بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu amray ama bulshada islaamka la faray waxaa ka mid a guurka waxa la yidhaahdo oo in la dhiso qoysas lagu soo biiriyo bulshada. Bulshaduna waxay ka kooban tahayba waa qoysas isu yimi. marka diintu aad bay u buurinaysaa mowduuca guurka la yidhaahdo. maqaasid badanna waa leeyahay guurku oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay oo ay ka mid tahay in la helo taran bulshada islaamka ay badato, ay ka mid tahay qofkan dadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala khariizadii iyo shahwada ku abuuray inay si habsami ah oo ilaahay raalli ka yahay u gutaan. arrimo badan oo ay kuwaas ka mid yihiin baa loogu talagalay. waxyaabaha marka caraaqisha ku ah ama xanibiyo ku noqon kara guurka qiimaha badan ee shareecadu meel sare saartay waxaa ka mid a in asbaabihiisa la adkeeyo, sida maalan meherka oo kale. meherkii in la qaaligareeyo oo ay gaadhaan dadku heer ay guurkiiba tahli waayaan. arrintaas waa arrin runtii ka hadalkeeda u baahan. meherku waa shay waajib ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku waajibiyey ninka doonaya inuu haweeney guursado. waatu nisaa saduqaatiina nixla ayaa alla yidhi subxaanahu wa tacaala. marka meherku asal ahaan shareecadu xuduud gaar uma yeelin xagga badnaanshaha iyo xagga yaraanshaha toona. ilaahayna qur-aankiisa uu ku tilmaamay wa aataytum ixdaahuna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shay-a, waa kaa la yidhi subxaanahu wa tacaala, oo badnaansho lagu tilmaamay. rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markaynu eegno xilligiisii dhaqankii iyo waxyaabihii jiray, in uu wax yarna ku meheriyeyna waa jirtay oo dumarka iyo ragga iskugu guuriyey. sidii ninkii haweeneydii nebiga isu soo hibeysay markuu ninkii saxaabiga la joogay rasuulka u arkay inaanu rasuulku wax dana ka lahayn, rasuulka ilaah ii guuri buu yidhi. markaasaa wuxuu ku yidhi maxaad haysataa? adduun maxaad haysa? waxba ma haya buu yidhi. iltamis walow khaataman min xadiid, kaatunbirana allah ka dhigay balwaxraadi. markii dambe u soo laabtay waxba waa soo waayey buu rasuulka ilaahdow. markii dambe wuxuu u guuriyey rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aayaad qur'aana oo u yaqaana inuu barabaa meherkii looga dhigay. marka shareecadu waxay aada u xoojinaysaa in meherka la khafiifiyo oo in la qaali gareeyo. waxaad mooddaa in la diidan yahay. cumar bin khataab radi allahu canhu uu reebi jiray meherka in la qaali gareeyo. rasuulkuna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo ka hadlaya meherka fudud wanaagga uu leeyahay oo qofka dumari markii ay fudaydiso arrinkii, wuxuu rasuulku inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi, waxaa idinku baraka badan kuwa idinku meherka jaban ayaa idinku baraka badan. riwaayad kale waxay leedahay waxaa idinku khayr badan kuwa idinku kharashka yar. meel kale xadiis wuxuu tilmaamayey waxaa yubniga iyo barakadu waxay ku jirtaa taysiira khidbatiha wa taysiira zawaajiha wa taysiira raximiha, in doonisteeda la fudaydiyo qofka dumara oo aan yana culays la gelin, in guurkeeda la fudaydiyo, dhalmadeedu inay fudaato. arrimahaas ayaa rasuulku inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. haddii markaa la qaali gareeyo meherkii oo meel sare la saaray sida waaqiceenna hadda ka muuqata, waxaa ka dhalanaya fitan fara badan oo aan la mahadin baa ka dhalanaysa. waxaa ka dhalanaysa horta guurkii inuu hakado oo guurkii lagu dhiiran waayo, iyadoo maanta oranaya fitan badan inay adduunka ka jirto iyo waxyaaba badan oo sahlaya dhibaato inay dhacdo. guurkii baa yaraanaya. guurkii la is amray ee nabiyullaahi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu ku booriyey da'yarta, yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj, uu rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. waxaa soo baxaysa markaa oo imanaysa in guurkii la waado. waxaa kale oo imanaysa marka uu meherku qaaliga noqdo in waxyaabihii kale ee takaaliif ahaa ee kharashaadkii kale oo ay ka mid tahay gabaatiga la bixinaya ha haato, ama ha haato guriga iyo waxyaabaha la dhiganaya ha haato, ama xafladaha iyo arooska wax lagu samaynaya ha haato, in wuxba ay qaali noqdaan oo ha dhowto tallaabo la qaadi kari waado. waa waxyaabaha ka iman kara. waxyaabaha ka iman kara fitanti waxay noqonaysaa haddii waddadii khayrka ahayd ee xalaasha ahayd la adkeeyo
waxaa soo baxaysa in jidkii xaaraantahaa la fudaydiyo oo si yaro hawl yar qofku markaa zinadii iyo fawaaxishtii arrimaha noocaas dadku inay ku dhacaan ayaa suuragal ah. waxay noqonaysaa bulshadii markaa inay bulsho fasaado ay noqoto oo fasaad ku bato. waxaa ku badanaya dumarka guunta noqday ee guryihiis ka fadhiya ee 40-50 gaari da-doodu oo laga yaabo sida meelaha carabaha ka dhacdo kale in guurku markuu la waayo dumarka iskaga gabowaan guryaha. waa waxyaabaha iman kara. waxyaabaha iman kara waxaa ka mid a zawaaju shigaar, zawaajka la yidhaahdo, oo waxaan xusuustaa carabta qaarkood baa marka waxay gaadhsiiyey markii heer aada u qaali ama heerkii la gaadhsiiyey takaaliiftiisii ay waxa la yidhahda shigaarka isku bedel ah, oo ninkii markuu gabdho leeyahay wiilashiisi markaa inuu gabdho kale ugu soo bedelo oo yidhahda gabadhan ku sii adna war gabadhan isi, oo noocaynkaasoo kale ah. oo hadhowtan haddii labadii qof ee isqabay laba ka mid isku dhacaan kuwii kale inay kala tegayaan oo duruufaruntii aad u adag oo yamanta ku arkay ba ka mid ah. marka fitantu way fara badnaanaysaa kullamaa guurka la adkeeyo, fitantu way badnaanaysaa. waana muhim marka in la iska kaashado oo guurka la fudeeyo, dadka waalidiintii ka shaqeeyaan oo dadka maxaan ku dhahdaa gabdhuhu immaankooda maskaxdu ay shaqayso oo aan laga dhigin meherku shay ganacsiya iyo shay tacbasho aan laga dhigine mustawihii loogu talagalay laga dhigo. oo marka qaar waxaa laga yaaba gabadh in iska dhaadhiciso haddii meherkaaga aad qaali ka dhigto aad meel isaga gaadhsiiso ninkan waa sii wada noolan kartaanoo culays baa fuulaya. arrintaasna waa macno qaldan weeyaan. waxaa laga yaaba cagsiba inay keento, dhibaato kale ay keento oo cawalxumo iyo xiqdi iyo isnacayb iyo nooc maaragtay aargoosi oo kale qofkan dumar ku ciisha adna ciil iyo dhaqan xumo ka soo baxo ayaa suuragal ah marka la qaali gareeyo. waxay keeni kartaa isnacayb bay keeni kartaa, waxay burbur reerkay keeni kartaa. marka waa muhim in la iska kaashado khayrka, in waalidiintu ay ka shaqeeyaan sidii gabdhaha loo guurin lahaa. oo rasuulkeena maxamed ah salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu inoo sheegay oo keliya qofku in loo eego dhaqankiisa akhlaaqdiisa. idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh. qof diin iyo akhlaaq hadduu yimaado u guuriya. akhlaaq iyo diin baa in la eego xoola ma aha. taas baynu insha allah isku baraarujaynaa in la iska kaashado dowlad iyo shacabba da'yarta u guurinteeda. waxay soo gelaysaa watacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala ithmi alcudwaan. taasaynu isku dardaarmaynaa. ilaahay subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dhigo kuwa khayrka dhegeysta ee ku camal fala ee wanaagga isu sheega. subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk.